nolosha adduunyadu waxay indheergaradka u tahay dhalanteed, doqonkana ciyaar, maalqabeenkana maadays, saboolkana musiibo. Kasmo haddii uu caqligu bato waxaa yaraada hadalka. Dulmi iyo garowshiyo. Loox baa musbaar ku yidhi waad i dulmiday, musbaarkiina wuxuu ku jawaabay haddaad arki lahayd dubbaha layla dhacayo waad ii garaabi lahayd. Saaxiibtinimo. Saaxiibku waa qof og wax walba oo kugu saabsan welina kugu jecel. Guusha. Ha akhrisan sheekooyinka guusha waxaad ka heli doontaa fariin keliya. Akhriso sheekooyinka guuldarrada waxaad ka heli doontaa fikrad aad ku guulaysato. Dulqaad. Dulqaadku wuxuu leeyahay xad, haddii la dhaafiyana waxa uu noqdaa doqonnimo. Suurtagal. Haddii aan la adeegsan lahayn ereyga sidee, dameeruhu waxay noqon lahaayeen culimo. Waa inaad wax iska weydiisaa wax kasta iyo wixii kugu cusubba. Haddii kale waxaad ahaan doontaa ruux aan kala saari karin sax iyo qalad, dhab iyo dhalanteed, run iyo been. Xishoodka xad-dhaafka ah. Xishoodka kaa hor joogsada inaad runta ku hadasho gabi ahaanba ma aha xishood ee waa daciifnimo keliya. Beenta. Nin Soomaaliyeed baa yidhi dembigii waan yaraystay, balse dembigii lacagta ayaa igu haray. Aniguna ma hayo ayaan idhaahdaa, iyaduna ma hadasho.